ilaaha mahad iska leh inta badan marka madaxda adduunka aan hor fariisanayno oo inta badan waxaan kala hadli jirnay waxa la yiraahdo amni security oo kaliya xaqiiqatan shirkan iyo safarkan oo prime minister Ethiopia Dr. Abiy oo ku yimid Soomaaliya wuxuu ahaa guud ahaantiisa xiriirka labada dal si loo xoojin lahaa isagoo ku dhisan ama ku base garaysan is-ixtiraam iskaashi iyo wada shaqayn in midka kale uu ixtiraamo qaranimada iyo jiritaanka iyo midnimada dal walba uu leeyahay taas waxay ahayd base-ka aasaaska wada hadalkeena horta tan labaad waxay ahayd dhaqaale awal waxaan ka hadli jirnay amni iyo security ka hadli jirnay marka waxaan aaminsanahay inaan soo gaarnay level aan hadda uga hadli karno sidii dhaqaalaha aan u kobcin lahayn sidii dawladaha dariska ah Ethiopia iyo Kenya aan uga hadli lahayn isu socodka dhaqaalaha iyo socodka xorta ah ee bulshada waxaan aaminsanahay inaan taaganahay meel fiican hadiiba annagana laga damci karo annagoo soo haysanaa maaragtay inaan wax badan ka harnay dawladaha dariska iyo caalamka oo dagaalkii sokeeyay iyo burburkii dagaalada nagu socda darteed in rajana laga qabo oo dawladuhu ay aaminsan yihiin Soomaaliya inay soo kabsatay ay cagaheeda ku istaagi rabto ama ku istaagtay oo lala sameyn karo ganacsi xiriir ganacsi lala sameyn karo marka waxaan isleeyahay waxay ahayd horumar prime ministerku safaradiisii marka dib u fiiriso uu ku mareeyay dawladaha dariska ah iyo meelo badanba inta badan wuxuu ka hadlayay mar walba wuxuu ka hadlayay sidii uu kor ugu qaadi lahaa fursadaha ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha iyo waddan walba kala hadlayay Suudaan wuxuu kala hadlay Djibouti ugu horeeyay wuxuu kala hadlay arrimaha dekedaha iyo ganacsiga Suudaan wuxuu kala hadlay arrimaha dekedaha iyo ganacsiga Kenya sidaas oo kale iyo wadamadii kale uu tagay kulligood annaga marka aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay in aan soo gaarnay level Ethiopia aan ka wada hadalno maxaan istari karnaa sidee u kala faa'iideysan karnaa Ethiopia maxay haysaa oo annaga u baahannahay annaga maxaan u baahannahay oo Ethiopia ay u baahan tahay xaqiiqatan waxaan ka arkay prime ministerku waji fiican oo u arko Soomaaliya inaan soo gaarnay meel aan iyagana wax tari karno iyaguna ay waxna tari karaan marka taas waxay keentay Soomaaliya waxaan offer garan karno waxa aan iyaga ay nooga baahan yihiin bacdama ay yihiin landlord aysan dekada lahayn maxaan annaga Soomaaliya aan dhaqaalooda aan ku kordhin karnaa waxa weeye waa dekadahaasna anagu dhaqaalo ma haysano iyaguna dhaqaalo uma haystaan ku dhisan laakiin waxa bilaabanaya markiiba hadii dekadahani ay ku wajahan yihiin inay supply gareeyaan 100 milyan oo Ethiopian oo aan dekada lahayn in dalal iyo shirkado badan iyo shakhsiyaad badan oo ganacsato ah ay maal gashadaan maxaa yeelay meeshaas waxa jooga consumers badan ayaa jooga annagu marka cid alla cidii maal gashanaysa dekedeena afar kaliya ma xitaa waxa jeclaan lahayn inay ka bataan bacdama aan 3300 oo kilomitir aan leenahay oo ah xeebta ugu dheer Afrika inay noqoto xeebaheena ay noqdaan xeebaha markab kasta oo soo maraya aaga uu istaagi karo uu ka qaadan karo shidaal uu ka qaadan karo raashin uu ku nasan karo bacdama ilaa 60,000 ilaa 70,000 oo maraakiib ay maraan aaga ay maraan marka in annagu aan noqono ilaahina uu nagu abuuray meel istaraatiiji ah inaan noqono dal istaraatiijigiisa ka faa'iideysan kara oo uga faa'iideyn kara dariskooda iyaguna waxay hayaan population aad fara badan 100 milyan 100 milyanna waxa ku xigay South Sudan iyada naftigeeda ilaa Uganda dadkeena waxa la og yahay inay u tagaan ganacsi iyo baayamushir u tagaan ilaa
koonfur africa ilaa west africa marka haddii aan u soo dhaweynay opportunity-gii iyagoo dalkoodii jooga aan u keenay wax alla wixii ay uga baahnaayeen si ay dhaqaalaheena Soomaaliya dhaqaalaha ganacsadeena ay u kobocdo inaan u keeno fursadaas runtii waa mas'uuliyad haddana saaran shalayna saarnayd oo aan ka gaabinay dadkan soo socda oo na bedeli doonana aan u fudeyn iyo jiilka soo socdaba aan u fudeyn doono si ay noloshooda iyo mustaqbalkooda wax uga bedesho arintaas madaxweyne qodobka ugu hadalhaynta badan arinta heshiiska ama heshiiskan aad adigi ra'iisul wasaare AP aad isla gaarteen ee ku saabsan dekadaha ayaa dood badan dhaliyay oo dad badan ay hadal hayaan oo ay leeyihiin dawladdu dekadihii ugu muhiimsanaa dekado ay siinaysaa Ethiopia arintaasna ma qabato dadka Soomaaliyeed marka dawladdu dekadihii u gacan gelinaysa wadan rival nala ahay ama duruufo kala duwan xaalado kala duwan aan isla soo marnay marka arintaas iyada ah maxaad uga jawaabaysaa xaqiiqatan horena u sheegaa meeshaan waxaa jira dhaqan siyaasadeed oo aan la ogolayn in hore loo socdo oo mar walba la isku dayo wixii ummadda loo qaban lahaa ama wax alla wixii horumar ah in cagaha la qabto xaqiiqatan dekad cid la siiyey ma laha dekaduhuna Soomaaliya ku yaalaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu horumariyo oo lagu dhiso ayay u baahan yihiin dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay Soomaaliyana ma laha Ethiopiana ma laha waxay ka imaan karaan meel walba waxay ka imaan karaan Asia waxay ka imaan karaan Khaliijka waxay ka imaan karaan Mareykanka waxay ka imaan karaan Afrikada kale waxay ka imaan karaan ganacsatada Soomaaliyeed cid walba yaa diyaar u ah inay maal gashato laakiin muhiimaddu waxay tahay waa la tartamaya waxaa kula tartamaya maxaan ku raahdaa Mombasa yaa kula tartamaysa waxaa kula tartamaysa Port Sudan yaa kula tartamaysa waxaa kula tartamaya anu tartan ma arko Djibouti dad waalehna weeye intaasoo idil yaa tartan kugula jira oo muhiimaddu waxay tahay inay dhaqaalahooda kor u kiciyaan kor u qaadaan inay shaqo abuur dadkooda u sameeyaan in miisaaniyadda dawladooda ay kor u kacdo in jidad la sameeyo oo isku xira Soomaaliya iyo meel walbaba la isku xiro marka qof alla qofkii diidan horumarkaas anu waxaan aaminsanahay waa dhaqankii hore u jiray oo aan Afrika iyo Asia iyo caalamka aan uga harnay oo aan la ogolayn Soomaaliya inay hore u dhaqaaqdo laakiin dekadahan iyo siyaabo kasta oo Soomaaliya loogu sameyn karo maalgashi iyo investment waxa weeye waxay ku bilaabataa vision iyo aragtidaasna waxaa ku xiga farsamadaasna waxaa ka soo baxa marka dhaqaale intee la gelinaya xagee laga dhisayaa wixii jidad noocee ah yaa la sameyn matarin yaa la sameyn doonaa ma garatay oo u kala goosha Afrika oo dhan waxaa studigaas la sameynaya ama farsamadaas ay ku jira dhaqaale